kulankan oo ahaa kii ugu dambeeyay kulamo xiriir ah oo todobaadyadii la soo dhaafay ay yeelanayeen maamulka gobolka kan degmada saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Amisom iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan dhalinyarada haweenka culamaa u diinka iyo waxgaradka ayaa maanta ka dhacay baar Xasan Dhiif ee gudaha magaalada Beledweyne. kulanka uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka ayaa loogu magac daray Ismaac Salaameyn waxaana looga hadlayay qaabkii loo taageeri lahaa howlgalka looga sifeynayo haraadiga kooxda Al-Shabaab ee degmooyinka Farakutiriska gobolka Hiiraan waxaana hadallo dhiirigelin iyo dardaaran isugu jiray isku dhaafsaday maamulka saraakiisha iyo qaybaha bulshada ee kulanka ka soo qayb galay. ugu horeyn odayaasha dhaqanka iyo qaar kamid ah bulshada qaybaheeda kala gedisan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan howlgalkan looga sifeynayo gobolka kooxda Al-Shabaab waxaana ay si isku mid ah u dhiirigeliyeen in bulshada ay qayb weyn ka tahay howlgalkaasi isaga ah iyagoona muujiyay dareen ku aadan sida ay uga go'an tahay bulshada gobolka Hiiraan ka qayb qaadashada xoreynta gobolka iyagoo codsaday in waqtiyada ugu soo horeeya in howlgalkaasi uu ka bilowdo gobolka Hiiraan. anaga hadii aan nahay odayaasha dhaqanka awal u soo dhimanay u soo dhaawacnay waxaan u malaynaa inta anaga odayaasha dhaqanka laga dilay ama laga dhaawacay ama laga afduubay xisaab male nimaa la yidhi faraha ka gurto gacantiisa saas u taalo waxa la yidhi shaydaanka hala qabto shaydaanka allaha qabto anigu awalaanba hore u haayo gacantiisa saas u tiiga maanta waa ka gubaye anigu awalaanba diyaar u hayno u hayne ayagoo walaalana midoobay anaga inoo midoobay dalkeena iyo dadkeena inaga raacdiyaan oo waxgaradkii ay laayaan gobolka waxgaradkiisa ma nool waxa noolna waa loo diyaar garoow siyaasad loo dil lahaa cawada iyo diyaabada oo diyaar garoobaan waxaan leeyahay inta wiilka soo gali lahaa dagaalamo oo dhinta le dhalinyarada odayaasha gabdhaha cid walba waxaan leeyahay difaaciga ka sugan dad walaalo oo dirisna anaga ay naga godaa xaqiiqiyan aniga oo hadlaya dhalinyarada gobolka Hiiraan waxaan si buuxda u taageersanahay howlgalka dib u xureyn ee lagu xureynayo deegaanada maqan oo ay maanta ku sugan yihiin cadawga Soomaaliya nin abwaan oo gabayay ah wuxuu hadda ka wardaahay Cabdullaahi Macalin Doodaan haddaan cadawga soo dheel madka la iska dhowreynin dhaxda maalinta uu ka galo dagarna ku daysta dhirif iyo ororod sida runta kaama dhiciyaan. maamulka gobolka iyo kan degmada Beledweyne ayaa dhankooda sheegay in ay muhiim tahay in laga wada qayb galo howlgalka looga ciribtirayo kooxda Al-Shabaab gobolka Hiiraan waxaana ay intaasi ku dareen in bulshada gobolka ay haatan u muuqato mid meel qura uga soo wada jeeda arrinkaasi isaga ah isla markaana waqti dhow la bilaabi doono howlgalkaasi. xubin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Naciimo Bashiir Ibrahim oo kulanka goobjoog ka ahayd ayaa ka codsatay bulshada gobolka Hiiraan inay taageerto dawladda oo ay ka qayb galaan howlgalka dib u xoreynta dalka gaar ahaan gobolka Hiiraan. taliyaha ciidamada Amisom ee gobolka Hiiraan Korneyl Cusmaan Dubad oo isna ka hadlay kulanka ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed in ay danahooda ka fikiraan intii ay ka fikiri lahaayeen caalamka iyo dana kale wuxuuna sheegay in ragga ka tirsan kooxda Al-Shabaab aan loo ogolaan in guryaha ay ku soo hoydaan maadaama uu sii dhacayo gobolkooda kooxdaasi. marka waxa weeye abaabulkii aan soo wadnay maanta waxaa halkan nooga cadaatay in maanta la soo gaaray halkii aan joogay diyaar leeyahay day tahay odayaal day tahay haween wiilal intaba in diyaar leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxa inta badan ay ka hadashaa siyaasadda caalamka waa fikradiisu waa dheer waxa laga yaabaa haddii la weydiiyo caalamka madaxdooda siyaasadooda axsaabtooda inuu ka jawaabo waxaa la rabaa ninkaasi inuu u fikiro naftiisa iyo ahligiisa iyo ummaddiisa inuu fikiraan intuu caalamka unan ka fikirin inaan u fikirno ummaddeena war yaynoo fikirin ummad kale yayna dhulkeenna xoreynin ciidamo kale maxaa yeelay annagaaba ku filan soo maaha. abaandulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan Korneyl Maxamed Amiin oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay diyaar u yihiin howlgalka oo wax dhulka ka yaala aysan jirin wuxuuna intaas ku daray in hadallada sheegaya in haddii la baxo yaa difaacaya magaalada Beledweyne taasi ay horay uga gaashaanteen oo ay diyaariyeen ciidamada baxaya iyo kuwa ku haraya magaalada iyo dhammaan goobaha laga xoreeyay cadawga. anigu haddaan ahay abaandulaha ciidanka xoogga gobolka Hiiraan waxaan idin sheegay in wax dhulka laga helo buraashad biyo lagu shubto
oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka talan jirto waxoodu waxay xabteen diyaar bay yihiin dhaqaaqa amarka amso ay leeyihiin waa markii ugu horeysay oo kulan noocaana ay isugu yimaadaan bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka kan degmada saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Amisom kaasi oo si qiiro iyo xamaasad leh la isugu raacay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo fuliyo howlgalka looga sifeynayo gobolka Hiiraan haraadiga cadawga ummadda Soomaaliyeed ee kooxda Al-Shabaab Ilyas Ahmed Cilmi warbaahinta qaranka Beledweyne